taxadiisa ku guubaabiyay dhalinyaro ay tol wadaagaan wax dhan buu ku dhiirigeliyey inay ku duulaan tol kale oo si uun ay u coloobeen dhaaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ka maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geerashii ay ka moora duugeen timacgaar aan tiro lahayn dhaaxay inta guubaabadaas eersatay ay ku go'een goobihii ay qabaa'ilku isku hareeri jireen iyada oo aan runta laga fogaana waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudoono inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeedo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyay waxna ka dooriyay xiriirkii bulsho ee u dhaxayn jiray wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaridii muwaadinka ee SYShu ay bilowgiiba ku dhaqaaqday taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tageeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guubaabada inta iska nacay Soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban markaas bay shisheeyihii dalka haysteena ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonnimada ku maakubi jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay Soomaalidu ugu jeceshahay xorriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleele iyo horweynba leh oo iyaga laga qaaday sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen isbeddelkaas maansadii guubaabada ku dhacay waxaa aad looga garan karaa Allah u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo taxihiisii ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeedadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta Soomaalida oo keliya wuxuu toddobaad walba dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraha dhiigga kicinaya Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyay milgada dhulku leeyahay iyo dal jacaylka ayuu dadweynaha ku guubaabin jiray wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo in dhulalka lagu kala qabsado mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagani inuu yahay midka taagta daran ee haddana demanaanshaha ku tilmaaman kaasoo aan loo nixina ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato tixdan soo socota oo aan sidaan filaayo uu gabyaagu tiriyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii guubaabada ahayd ee Soomaalida uu ku baraarujin jiray wuxuu yidhi dabka baxaya danabka qarxiyo ololka duulaya digta yeedhay daaraha burburay dagalka qiiqaya dayuuraadka kacay armiga lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulayo iyo weyda demi weynay diraysyada la boobiyo hurdada la isu dacareeyey qurumaha iswada doonayee duulka ka coloobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulkaa la isku dilayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiday baa dhii ka da'yaye ragma dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay damanaanta Soomaalida daahan weligeedee hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane wanduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaayad weligeedba Soomaalidu way ogeyn guubaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarrada ay sababi karto shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan sida ila tahayna Talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyay
cid garata maansada caynkaasi waxa ay dhibi karayso. inkastoo magaca qaramada midoobay ay waayaha dalka ku xukumayeen, haddana waxay ku howlanaayeen talyaaniga weeye sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen. runtiina cadawgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada. waxay qoob ka rogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1960 xilliga gobonimada laga soo hormariyo. si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa talyaanigii loo sheegay inuu jiro siyaasiyiinta la dagaalamaysa wax uga daran oo ah gabayada guwaabada miiran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay. maantaas bay amar isaga keli ku ah gabyaaga ku soo rogeen. waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka talyaaniga ku ceebeynayo, Soomaalidana uu ku kicinayo. sow kolka inuu dhinac kale uga wareego ma aha, isaga oo aan lagu garan sow guwaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha. dhowr ayaamood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guwaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhulwaa hal uu isagu lahaa inta ka dishay ka dibiray, dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraanay isaga oo geela haray miciyaha u soo faysanaya uu wiraxiisu meel dhow uga baxayo. wuxuu yidhi, dhulwaayahow hashaydii dilay ee gegida dhiibshay sidaad dhaqatay shalay qaalintaad dherananii goysay, dhoolaha markaad ku hubsataad dhuumatadii daaqday dheegga iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dharagtay waa kuwa eg tahay inaad dhawaaqdaaye haddaanse iilka lay dhigin ciyoon geeri loo dhaleeya in waraabo dhowrihi u go'i baan ku dhaarmaray. nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan jiraye adigoo dhabbada soo hayoo dhamar u rooraya oo aan dhannaba fiirinayn, dhalaqsi mooyaane dhudhumada yarow waan ku heli dhiif anoo qaba ee indhafoorka surubkaaga dhici baan ku dhaarmaray. dhugniga la ii soo sido iyo dhaayin hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye, dhay iyo karuur waa adigaa dhamay waxaygiiyo adigaa dhallaankayga baday, dhaaxa gaajada ee dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xidhiiya in dhirbaaxa kugu siibato yaan ku dhaarmaray. gabayga qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku gubaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan. wuxuu yidhi, raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhowr baqalateene dhalinyaro haddaan helo kuwaad shalay dhibaataysay, daraan laba guu weli caana dhamin urugan u dhuubtay oo cil dhabayaa ku heli daaman dhagaxoowe. dhaqaqaadka kani waa intaan laysu soo dhiganay in dharaara maydkaagu badan yaan ku dhaarmaray. dhaxalkay xumaysaa wixii fula ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godabtiira kugu dhowrayaa waa dhunkaal maqanee marun buu indhaa kugu dhuftaa geesi dhididaaye dhabbaan ku hadlayaa doqon dhirfaa dhiilahan jiraye marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagale inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmaraya bal ii dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biga. waa gabay sarbeeban oo Soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay. dhulwaagu waa ninkii talyaaniga ahaa ee koonfurta dalka ka talinayay. hashu waa Soomaaliya, ragga geela daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina maxkamad ku geyn karin. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.